runtii waa culays aad iyo aad u soo saarmaya ra-iisul wasaare abiy dowladdiisa sababtoo ah labada xoog waxay ka kala iman karaan laba dhinac waqooyiga iyo koonfurta oo cadaadis gaara saari kara inta ku hadhay ciidamada Ethiopia gaar ahaan agagaarka Addis iyo jidka u dhaxeeya labada dhinac ay ka kala imanayaan. Markaad eegto labadan xoog ee midoobay isku ujeedo ma ka yihiin dagaalka? waxay isku ujeedo ka yihiin in ay bedelaan xukuumadda hadda jirta oo abiy madax ka yahay iyo xisbigiisa PP wax hadalla oo aad u cadcad iyo goals ama bartilmaameed buuxa oo dhamaystiran weli kuma heshiin laakiin waxay ku wada heshiin inay dagaalka wada galaan inay dawladda ridaan inay markaa wada tashi loo dhan yahay iyagu hormood labadooda hormood ka yihiin la isugu yeedho dadka arrimaha saluugsan oo dhan. Marka la eego aagaga ay dagaalka ka wadaan culays intee dhan ayay ku keeni karaan ciidamada Ethiopia iyo weliba caasimadda Addis Ababa? runtii culays aad u badan bay ku keeni karaan marka hore kow fakarkii ahaa Tigray oo kaliya taa la dagaalamaya dawladda taasi meesha ka baxaysa waxoogii dadkii ugu tiro badnaa ee Oromo ayaa iyana dagaalka la soo geliyay labo magaalada Addis Ababa lagu leeyahay waxa inta badan ku wareegsan dadka qoomiyadda Oromiya haddii marka iyagu ay gacan siiyaan sida hadda u egtahayna ay gacan siinayaan xoogaga Tigrayga labadii xoog ee midna ugu tirada badnaa Addis Ababa hoygooda ahayd midna cududada xoogga militariga uu lahaa uu tuseen ilaa hadda haddii labadaas ay isugu tageen dawladdii waxaad moodaa in ciriiri ay gelinayaan aagga Addis Ababa ciidamada Tigraygu iyagu waxaad moodaa in ay boqolkiiba boqol xooga saarayaan xagga muruqa militariga sababtoo ah sumcad ballaaran kuma leh dalka Ethiopia in ay kelidooda wax qaban karaan iyaguna taa way og yihiin marka xooga ay hor wadaan in ay badeecada siyaasadeed ay iibiyaan oo ah in abiy dawladdiisa la afgambiyo waxay ka imanaysaa dhinaca Oromiya oo aqlabiyadna leh dad badanna leh isla markaana weli magacu aanu iyaga ka xumaan marka dadku waxay moodayaan in ay Tigray dalka qabsanayaan kelidood laakiin hadallada soo baxaya iyo waxyaabaha soo cadaanaya waxay u ekaanaysaa in xoogag Oromo iyo madax Oromo ay hadhow ishorwadi doonaan sidaan ognahay Tigrayga waxay u muuqdaan kuwo abaabulan oo dagaalku uu ka go'an yahay markaad eegto OLA maxay ka bedeli karaan miisaanka dagaalka awood ahaan maxay dhan yihiin sida kuwa Tigrayga uma urursana qalab uma haystaan xoogna uma leh tababar heer sare ana ma leh sidaad ku ogtahay qolada Tigraygu hubkii Ethiopia boqolkiiba 60 way dhaxleen intii kalena hadda way baabiyeen ilaa marka laga soo bilaabo June July laakiin sidaan sheegay badeecada siyaasadeed ee laga iibin doono 110 milyan ee Ethiopia Oromoodu ugu tuweyn tahay waa hadda maanta waxa jeebka ay ugu jirtaa Oromo marka haddii Tigray Ola iyo TPLF ay heshiiyaan midna xoogii wax ilaalinaya uu noqonayaa midna qofkii badeecada siyaasadeed ee odhanaya Ethiopia dib isbedel baan ku sameynay dawladdii PP-na waanu ka takhalusnay baa waxay noqonaysaa dhinaca Oromoga inay ka timaado xaaladda hadda taagan markaad eegto ma isleedahay waxay wiiqday rajadii ahayd in wada hadal lagu dhameeyo colaadda runtii haa mar hore ayay ahayd in ay qolada TPLF wadeen in wada hadalka la dardar geliyo wixii June ka horeeyay hadda ninka ciidamada TPLF-ta qorshaha u degayo General Sadiq la yiraahdo hadaladiisii ugu dambeeyay wax ka mid ahaa in la dhaafay jadwalkii wada hadallada haddana ay uga dambeeya aanay jirin in nidaamka la bedelo markay leeyihiin nidaam ha la bedelana inta badan nidaam carabka kuma dhuftaan laakiin waxay odhanayaan in laga saaro gobolka Tigray ee cunaqabataynta la geliyay inaan cunaqabataynta ka saaro taasa waxay ka dhigan tahay inay soconayaan haddii ay karaanba ilaa Addis Ababa ilaa madaxtooyada oo ra'iisul wasaare abiy uu hadda joogo marka way cadeeyeen TPLF way cadaysay inay kombolji isku taageen waxa ay Oromoda u soo galiyeen waxa weeye labada xoog inay wada socdaan ay galaan meesha la yiraahdo Addis Ababa ra'iisul wasaare abiy mar uu ka hadlayay dagaalka waxa uu yiri xoogag shisheeye oo aan Ethiopian ahayn ayaa dagaalka ku jira yay noqon karaan xoogagaas shisheeye dunkan abiy uu hadda soo tuuray wax satellite ama cid sheegaysa ma jirto aan maanta warka uu sheegay aan ka ahayn haddii cid la tuhmayo abiy tuhmayo ama uu rabo inuu dadka Ethiopia tuhum geliyo cid uu jeedi kara waxay noqon karaan Suudaanta iyo Masaarida iyo isagoo marka aad meel fog arintiisa ku sii tuurtana la oran karo tolmo wuxuu u jeedaa dalalka uu hadda la dagaalansan yahay ee reer Yurub iyo Mareykanka